السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابta waxaan baran doonaa maanta insha Allah sidaad 4G gaaga isticmaalayso intaan speedkiisa aad u kordhin lahayd iyo sida aad u bedeli lahayd magaca iyo passwordka insha Allah. waxaan kaloo baranaynaa sida aad video dambe ku soo saari doonaa insha Allah sida looga dhigo sida imika sometimes oo kale routerkeyga isticmaalayeen 4G isticmaalayso sim card Telesom haddaad geliso kuma shaqeynayo. Okay, si aad softwarekaas uga bedeli lahayd oo ugu samaysan lahayd in uu ku shaqeeyo sim card Telesom aad geliso ka Telesomna inuu ku shaqeyn karo ku somtayla iyagoo real yana toos ayaan soo duubi doonaa. saan casharkii horeba ku soo aragnay waxaan tegaynaa browserkii online.16 inta markaan ku qorno waan furaynaa. Okay, setting kan tegaynaa passwordkii waan gelinaynaa. Okay, saas way noogu soo baxayaa settingkii dhamaantii. Okay, magaca markaan bedelayno halkaas aan ka bedelaynaa. halka imika aniga magaca igu qoran waad arkaysaan waan bedelaynaa. Okay, sorry sidaa markaad dhahdo magacaad rabtaad ku qoraysaa passwordkina saasaad kama passwordka doontaad ku qori. Okay, sorry magaca markaad soo ugu qorto passwordkina xaggaas ka bedeli kabacdi waad upload gareyn. Okay, ma hubtaa ayuu ku oran inaan bedelo oo waad leedahay. saad jeedaan hadda uga baxay network uga baxay ka kuma jiro. iska xidhaynaa. magaca soo qabsaday magaca imika sad buu raaciyay marka hore engineer soo lahaa binkan dib gelaynaa. saad jeedaan u qaatay. Okay, insha Allah waxaan video dambe ku baran doonaa sida loo bedelo 4G Telesom ama somtel ha noqdo ama router ay isticmaalaan soo gasho ha noqdo. waxaa ku jira software iyo program iyagu ay leeyihiin oo inuu ku shaqeeyo sim card-koogaas oo keliya. waxaan soo sameynayaa imika muuqaalo YouTube-kayga soo gelin doonaa insha Allah muuqaalo si live ah routerkii somtel ku shaqeynaya sim card Telesom si maxay 4G somtel ku shaqeynaya Telesom ku shaqeynaya somtel hadii la geliyo soo gasho routeredeedan sim card-ka la geliyo iyo adu dhammaan inta shirkadood waxay isticmaalaan aalad routerada iyo 4G-yadu in dhammaan mid walba mid kasta ku shaqeyn karo ka doonto u bedelan karto. marka dhammaan casharada iyo casharo badan oo faa'iidooyin fara badan la siyaad uga faa'iideysataan ku xidhnow kanalkayga Engineer Subaila Saad. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.